asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiin baa meel walba aad joogtaan iyo se walba ay noo daawanaysaan. waxaad kusoo dhawaataa muuqaal aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Horseed oo lasoo siixatay laba ciyaaryahan oo qalbada dhexe ka ciyaarta kuwaas oo kala ah Axmed Xasan Ciyo Macaani iyo Cabdikariin Cabdallah Quwaaye. waxayna ka mid yihiin labada ciyaaryahan marka la yimaado horyaalka Soomaaliya kuwa ugu magaca sareeya. kooxda kubadda cagta Horseed ayaa la soo wareegtay xidigaha kale Axmed Xasan Macaani iyo Cabdikariin Quwaaye kuwaas oo ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee qalbada dhexe ka dagaalama. labadan xidig ayaa hore ugu soo wada ciyaaray si wada jira naadiga Tikada iyagoo kula soo guuleystay horyaalka Soomaaliya Premier League, balse safar dibadda ayay ku maqnaayeen muddo kadibna naadiga Horseed ayaa wada xaajood la sameysay taas oo keentay in dib ugu soo celiso dalka iyo horyaalka Soomaaliya Premier League. Axmed Xasan Macaani ayaa dhowr kooxood hore ugu soo ciyaaray horyaalka Soomaaliya Premier League waxaana ka mid ahayd Saxafi, Elman, Dekadaha isagoona kooxda Dekada kula soo guuleystay horyaalka Soomaaliya Premier League. Macaani ayaa kooxda Horseed wuxuu ugu soo biiray naadiga Elman taasoo qandaraaskiisa uu kula joogay ka dhacay, waxaana Horseed ka faa'iideystay adeega ciyaaryahanka Macaani. Cabdikariin Cabdallah Quwaaye ayaa muddo dheer la joogay kooxda kubadda cagta Dekada isagoona waqti qurux badan la qaatay si la mid ah kooxda kaliya oo xirfadiisa ciyaareed ee heer caalami ah ee uu la soo ciyaaray ama u ciyaaray ayaana ka mid ah kooxda kubadda cagta Dekada. Horseedna markan ayuunu maamuli doonaa ama qayb ayuu ka noqon doonaa. labadan xidig ayaa mar kale qadka dhexe ku mudoobi doona iyagoo hore ugu soo wada ciyaaray kooxda Dekada, balse wareegga labaad ee horyaalka Soomaaliya Premier League waxay u dagaalami doonaan naadiga Horseed. kooxda kubadda cagta Horseed ayaa muddo dheer ugu dambeysay inay ku guuleysto horyaalka Soomaaliya Premier League, waxayna sanadkan rabtaa inay gacanta ku dhigto horyaalka maadaama ay la soo siixatay xidigo garanaya sida loogu guuleysto horyaalka dalka. xidigahan ayaa loo kala dhiibay lambarada 28aad iyo 29aad. lambarka 28aad waxaa xirnaa doona Cabdikariin Cabdallah Quwaaye halka Macaani loo dhiibay lambarka 29aad ee kooxda, waxayna ku dheeli doonaan ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkani. si kastaba haatee ciyaartooydan cusub oo la soo siixatay kooxda Horseed ayaa lagu wadaa inay kasoo muuqdaan kulanka ee Horseed ay la dheeli doonto naadiga Muqdisho City Club ciyaar dhici doonta 13 bisha aan ku guda jirno isbuucan ah horyaalka Soomaaliya Premier League ayna kasoo muuqan doonaan. haddaba Macaani iyo Quwaaye maxay ku soo kordhi karaan kooxda kubadda cagta Horseed? fikirkaada inala wadaag qaybta hoose ee commentiga. haddii aad ku cusub tahay janaalkan subscribe like hanaga